روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريم. waxau rasuulkeennu yidhi saacadda qiyaamadu ma dhici doonto ilaa la arko 10 calaamadood markaa buu nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay kama fi nas alqur'aan fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhaanin mubiin yakhsha an-naasa hadha 'adaabun aliim waxau nebigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nebigu sheegay waxa kaloo nebigu sheegay dajaal buu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taalo ilaa dajaal uu maraya dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi fadajaal fa sharru ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wa saacatu adha wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayey dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay mayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaadda maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof walii qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u eg u wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninka akhrista maalintii ilaahay fitnada dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi masjid alaqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiine dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayakaa dajaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi calaamadda saddexaad buu nebigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta safa la yidhaha ina asafa waalmarwa sakhradaa bay ka soo baxaysaa iyaduna adduunyadao dhan bay maraysaa qof kastoo adduunyada ku yaallabay yuu nebigu yidhi waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna way ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaluu nebigu sheegay inuu imanayo nebi ciise calayhi الsalaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksira الصaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu اljizyata nebi ciise calayhi الsalaam ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shareecadda islaamku adduunyada ku xakumi doonaa uu cadaalad fali doonaa dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyey uu ka rafici doonaa saliibka gaaladu ay yidhaahdaan nebi ciise lagu xidho lagu daldalayna uu jebin doonaa cadaaladda islaamku adduunyadao dhan ku xakumi doonaa buu rasuulku yidhi waxaa kaluu nebigu sheegay yaajuuja wamaajuuj in iyakana la furi doono buu rasuulku yidhi waa 2 ummadood oo ku abtirsada yaafith binu nuux bay ku abtirsanayaan ummaddiiba waa 400,000 mid iyaka ka mida ma dhinta baa la yidhi ilaa uu arko 1 wiiloo isagu uu dhalay oo qaan gaadho dagaalka galay mooyaane
ummaddaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuju wama'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yihi calaamadda lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobadkeenna buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhahdo qofku markaasaan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cadceeddu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yihi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cadceeddu ay ka soo baxdo waddanno dhan iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda toddobaadi waa taas calaamadda sideedaad buu nebigu yihi khasfun fi lmaqrib galbeedka adduunyadana waddanno dhan iyo ummado dhan baa dhulku la gu'i doonaa calaamadda sagaalaad buu nebigu yihi khasfun fii jasiirati alcarab jasiirati alcarab dhexdeedana dhul iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda tobnaad buu nebigu yihi walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaamee dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi tobankaa calaamadood baa ka soo horreeyey buu nebigu yihi saacadda qiyaamada tobankaa calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta bishani markaa waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiye biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka waran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anaa ini xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay markaa bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalaayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahada dadkay dhibtaas soo gaadhana allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka uu hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu rasuulku yidhi ilaahay barya buu nebigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta ininkoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo istaqbiluu biamwaaji اlbalaa'i bاdducaa waxasinuu amwaalakum bالzakaa wadaawuu mardaakum bالsadaqa طib nabowi imaam ibn qayim raximah اllah xadiiska ayuu ku sheegay balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nebigu leeyahay duca ku qaabila ducadu way weecisaa balaayada xoolihiinnana waxaad ku ilaalisaan buu nebigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagelay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqadda ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn ba adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqadda ku daweeya warkayna galay markaa warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi
xanuunaan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabbatu sawdaa dawaa'u min kulli daa xabasuudda buu nebigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilma tajaarub waa cilmiga tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilm alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo loo haynba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaaءun linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan mu'minka inuu gala maaha khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha kuu galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaah iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warkaa uu galay allah inaga dhigo allah inaga dhigo bishani waa bil barakaysan markaa han ducaysano in sha allah waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwaة اddaaci ida dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacalahum yarshuduun sababa nusuulka aayadda ay ku soo degtay maxay ahayd nin acraabi oo reer baadiyaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi الsalaatu wassalaam waxau yidhi yaa rasuul allah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysaa ma mid naga dheero markaan baryayno maanu qaylinaa mise waa mid noo dhow oo aan la munaajownaayo hoos baan wax ugu sheeganaa bal noo sheeg u aamusay nebigeennu calayhi salaatu wassalaam deedna markaasay aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay ka i baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in lagaa aqbalo imse shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo taacadda ilaah ilaali oo wixii macruufa ilaahay ku faray la kaalay wixii munkaree shareecaddu ay kaa reebtana ka reebtoom walyuuminuu bi ilaahayna rumee oo ilaahay aamin macnaheegu waa maxay alqadaa waalqadar waxa ilaahay kugu xakumayna ku raali noqo wixii ilaahay kuu qadarayna ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaaddo waxa adduunyada la sheegay o dhan ayna saamayn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishayin min alkhawf wاljuuc wanaqsin min alamwaal wاlanfusi wاthamaraat maxaa ku xiga wabashir saabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan addoonkuna maaha musayara waa mukhayar addoonku mukhayar maahayna waa musayar addoonku wax ma dooran kara isagu wixii ilaahay kuu qadara adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nebigeennu calayh salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'igtu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhaahdaa addoonkaygii ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen haa bay yidhahdaan addoonkaygii midhihii qalbigiisa ma soo qabateen haa waan soo qabannay markaasuu ilaahay yidhahdaa famaada qaala cabdi addoonkaygii markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yidhi bal ii sheega markaasay yidhahdaan xamidaka wastarjaca xamida ma macna alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi markaasuu ilaahay yidhahdaa maadaamuu addoonkaygii markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen uu aniga ii mahadnaqay uu isaguna xaggayga u soo noqday ibnuu licabdii beytan fi ljanna aqal jannada uga dhisa aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa mu'minku barwaaqadana uu ka macaashaa masiiba hadday ku dhacdana uu ka macaashaa waa qofka mu'minka laakiin fa ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaanka haynoo adkeeyo amiin dhahada bisha ramadaanna allah haynaga aqbalo dad walaalaheena dibadda taagan masaajidka maasha allah aad baa loo buuxiyey in sha allah khudbaddaan iska bilaaban doona allahna inagu anfaco wa sala allahu calaa sayidina moxamed